Jubbaland waa maamul goboleed ka mid ah dhulweynaha Soomaaliya. Dhanka waqooyi waxaa ka xiga dalka Itoobiya, dhanka galbeed waxaa ka xiga dalka Kenya, dhanka barina waxaa ka xiga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, halka dhanka koonfur ay ka xigto badweynta Hindiya. Inta aan la kala goyn Soomaaliya waqtigii gumeystaha, Jubbaland waxaa la isku oran jiray dhulka Soomaaliyeed ee NFD ee Kenya xukunta iyo Jubbaland maanta jirto. Balse wixii ka dambeeyay sanadii 1925 ayaa la kala jaray oo mid la raaciyay. Jubbaland waxa ay ka mid tahay dhulweynaha Soomaaliya kiisa ugu qanisan oo waxaa dhex mara webiga Jubba. Caasimadda Jubbaland waa magaalada Bu'aale, halka magaalada ugu weyn ee ugu dadka badan ay tahay magaalada Kismaayo. Bedka Jubbaland waxaa lagu qiyaasaa 110,293 kiiloomitir, waxayna ka kooban tahay 3 oo kala ah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. Sidoo kale waxa ay ka kooban tahay 17 degmo oo kala ah Baardheere, Buurdhuubo, Beled Xaawo, Bu'aale, Badhaadhe, Afmadow, Jilib, Jamaame, Garbaharey, Luuq, Doolow, Dhobley, Dajuuma, Saakow, Xagar, Ceelwaaq iyo Kismaayo.